deeqihii hore loo soo gaadhsiiyay saddexdii caruur ahaa ee uu dhalay Muuse Ciise Samatar ee ku dhashay xanuunka magaciisa la garanayn ayaa waxaa xaafadda Cali Xuseen ee magaalada Burco looga dhagax dhigay guri loogu talagalay inay degaan waalidka dhalay caruurtaasi oo aan hore u haysan guri ay galaan. Dhismaha gurigan ayaa dhagax dhigiisa waxa maanta si rasmi ah ugu wareejiyay Suxufi Maxamed Siciid Gaxnuug iyo Suxufi Maxbuub Xuseen Ismaaciil iyo sidoo kale injineerka dhismaha gurigani qaatay wajiga koobaad ee lacagtaasi oo dhamay $5,000 Mareykanka ayaa waxa ugu horeyntiiba ka warbixiyay bilowga dhismahan labadaasi suxufi. taariikhdu tahay 24 bishii shanaad 2018 kuna beegan 8 Ramadaan waxaanu ku sugannahay xaafadda Cali Xuseen bil ka hor xaafadan waxaanu ku soo booqannay caruur ka kooban 3 caruura oo aabba iyo hooyo wada dhaleen oo maskaxdoodii iyo madaxoodiiba saameyn ku yeeshay caawimaad fara badan iyo saacidaad fara badan oo dadka walaalaha muxsiniinta ay ka heleen caruurta dhibaatada ugu weyn ee haysatay waxa ahayd number 1 bara ay ku hoydaan oo iyagu ay leeyihiin inaanay lahayn markii aanu imanaynay alxamdulillah hadda waxaan ku guuleysanay in sadaqadiini iyo taakuleyntiini aad soo dirateen aan ugu iibinay caruurtii dhulka inaga dambeeya oo ah dhul cabirkiisu gaadhayo 2 balood isla sidoo kale maanta baloor ka mid ah dhulkii ayaanu caruurtii u dhagax dhigaynaa waxaanu uga dhisi doonaa insha Allah taala dhulkaas guri ka kooban 4 qol iyo labadiisii suuli iyo kijadii oo isku dadan una dhisan qaabka casriga ee guryaha burca ku yaala sidoo kale waxaan rajaynaynaa insha Allah taala gurigaas dhismihiisu inuu ku dhamaado sida hadda garabkayga uu taagan yahay injineerkii guriga dhisayay iyo aabaha dhalay caruurta walaala Ciise 30 cisho gudahood in guriga caruurta loogu dhameeyo insha Allah taala balse 30 cisho gudahood waxa ku xiran tahay hal shuruud maanta waxaan guddoonsiinay injineerka fayskii hore ee lacagtaas fayskii hore oo gaaraya $5,000 $5,000 waa fayska hore ee guriga lagu dhisi doono waxa inoo dhiman fayska labaad ee guriga kicintiisa marka laga yimaado ama qoriga la saaro wixii ka dambeeya decoration iyo sharaxaada iyaduna lacag inta in leeg ayay qaadanaysaa ama ay u baahan tahay marka walaalaha muxsiniinta ee khayrka jecel khayrkii horena baxsaday bil Ramadaanna maadaama imika lagu jiro waxaan jecelahay inaad ka faa'iideysataan markii ugu horeysay aabaha dhalay caruurtan waxa uu codsaday waxa ugu dhibta badan inay tahay meeshii lagu hayn la caruurtan alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxa noo hirgalay wajigii koobaad ama gurigii oo wajigiisii koobaad maanta halkan laga hirgeliyay isla markaana meesha naga dambaysa oo ah balood dhameystiran laga dhisi doono adaba bulshada muslimiinta waxaan u sheegaynaa in aanay lacagtani ku wada filayn hase ahaatee aan isniri bal si qaban kartaan ha noqdaan ugu yaraan kala badh ilaa guriga in markaas ay wax ka tarto alxamdulillah rabbil caalamiin indhihiina idin macallin wada aragtaan bulshada kale hadhay ee aan ka qayb qaadanna waxaan leenahay ka qayb qaata si gurigaas caruurta ugu dhameystirmo kaysana alxamdulillah rabbil caalamiin maanta hawshiisii qayb ka mid ah ayaa fushay inta kalena waxa rajeynaa Ciise inay ku dhamaato insha Allah taala geesta kale waxa dhismahani ka warbixiyay injineerka dhismahani qaatay iyo nooca uu noqon doono gurigu wuxuu ka koobnaanayaa 4 qol iyo suuliyaashii iyo joogkiisii idaaradiisa dambe banaanay oo isku dadan yahay sida guryaha halka guryaha magaalada ku yaala jahadiisa ninka wajahadu ma dhagax galaya hadii Ilaahay ka dhigo damana waa loo banaynayaa samarka ay waqtiga dal gaadho ayaa la gelin doonaa iyadana ugu dambeyntii waxa isaguna ka jawaab celiyay Muuse Ciise Samatar oo isagu ah aabaha dhalay caruurtaasi loo dhisay gurigani isagoo uga mahad celiyay walaalaha muxsiniinta ee tabarucaadkana ka qayb qaatay suurana galiyay hoyga ubadkani ku daryeeli doonaan gurigii waxaanu bilownay marka dhismihiisii oo ka hawshiisii imkaan ku jiro lacagtii ku dhismayna waxba naga dhiman ma wada hayno insha Allah taana waan sugaynaa dadka sadaqada awal hore waa noo soo caawiyay Cabdiraxmaan Ciise wararka telefishinka caalamiga Soomaaliya Cable Burco.